ninkii gabar dila dumarkan ha loo dhiibo weliba iyadu uma tag. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu asxaabta halkaad nagala socotaan waa keeskii Soomaali. waxaan ogsoonahay maalmahan inay jireen dhibaato dhacday ama gabar Soomaaliyeed dhibaato loo geystay haddii aan ragga Soomaaliyeed ka tirsanahay kamid ahay waan ka xumahay waxaan rabnaa arrinkaas inaan falaaqay yani dhibaatada maxaa soo celceliyay maxaa keenay amarnay maxay kula tahay in dumarka markasta ay ku dhacaan xaaladan oo kale wallahi horta wax kasta waa qadar aad baan uga xunahay gabadhii dhimatayna Allah u naxariisto intii gacan ka xaqdeen soo dhan baa Allah u naxariisto dhibaatadana waxa wadaan islaahay kulay ragade hawadaan ma xuma laakiin hadii talaabo sharci laga qaadi lahaa ama ninkii naag wax ku sameeyay isagana qaab uu wuligi ka soo kaban la marin lahaa ismidii way soo noqonaysaa waayo kii hore waxa lagu sameeyay ka xabsanaani kane laakiin hadii inta la xidho aanan arkaynin ama adu kulli qofkaas xaqiisa ma helin ana hadda waxaan aaminsanahay gabadhii hadda u dambeysay xamdi inay u baahan tahay cadaalad yaa laga sugayaa cadaaladda isleeda cadaaladda waa laga sugayaa maxaa laga sugayaa dawladda haddii caqabadan ama dhibaatadan mar walba soo noqotay hal kale oon ahayn in dawladda laga sugo oon ahayn ma jirtaa oo la hayso hal kale waa jira dumarku hadday intii gacmaha isqabsadaan ay kacaan ay meel kasta ka kacaan iyagu ururo samaystaan ninka iyaga ciqaabi kara markaas ragga Soomaaliyeed miyaad ku talinaysaa inay dumarka ciqaabaan haddii raggu ay hadda san ay ku socdaan in muddo horsano noqotay kow maaha laba maaha saddex maahan marka maadaama dibku batay in la dabar jaro way wanaagsan tahay dumarka ha loo dhigo waxa leedahay hadda dhibaatadii way soo noqotay eedan maxaa ragga tusho ugu ridaysaa waxaana ku talinaysaa in ragga la ciqaabo taas xal ma noqonay marka midi ku taag xal ma noqda haddii midi ku taag noqon weyda raggi waana qaadan waa dumar baan nahay hooyaan nahay abtibaad waani dhalay waani dhali doonaa waani dhaxnay ilmahayagaatiin haddii gabadha ay iska ilaaliso meelaha halista hodeel uga tagto ama guriga uga tagto meelaha khatarta leh soo lagama yaabo in yani yaraato dhibaatada horta midan hadda taagan oon ka hadli mayno waayo hadda gabadhan iyada tagtay baaba hadda aad mowduuc ka dhigaysaa oo u tagtay sama iyadu umaysan tagin in la dilo umaysan tagin in nafteeda la dhaafiyo waxay u tagtay kaliya kalsooni ay ninkan ku qabto ayay ugu tagtay tan hadday dhaxayso ama ay imaanayso ogaan lahaydna may tagtay gabadh kastana nin iyadu uma tagto gabdhaha hadda tii yarayda caasha oo aad si fiican ma wada garanaynaa ay galkacay lagu dili jiray way yaray nin umay tagaynin jidba laga watay taasoo kale nin buu tagtay ma oran karnaa macnaha gabadhu baa tagay laakiin gabadha weyn yani de baaluqa oo yani dhibaato inta loo geysto hadan la sii dilay soo lama dhigi karo naftarkeeda qaladaadka qaarkii xataa dumarka qayb ay ka yihiin sababtoo iyagoo u bareeraya qatar maya gabadhan kumay tashanaynin ninkan baa dilaya kumay fikiraynin ninkan baa dhibaato ku geysan haddii isqabays dilaan Soomaa may ku tashanaysa waa maya waa dib oo nimanka xaggooda ka timid laakiin aan waxaan aaminsanahay haddii hadda aad leedahay ragga horor baan noqonay iska kaaye eega oo agteeda soo marina taasi waa mid oo marka dadkan Ilaahay baa isku qoray inay xalaf wadaagaan wada sheekaystaan waxaan waa wax jiray soo jireena wax imika bilaabmayna laakiin dadkii hore de horor ma ahayn laakiin raggan sabankan haddii aad leedahay iska kaaye ilaaliyo horor baan nahay marka guriga ayaga noogu imanayeen wiilna waan is ag fadhiisanaynaa adiga halkaad waxaad leedahay ninkii gabar dila hala dilo dumarkan ha loo dhiibo weliba haddii waxaad wadaa misleenahay midi ku taag oo halkii meesha aad ka raadileed waxaad ku xalinaysaa dagaal ayaad ku xalinaysaa misleedahay cara ayaa ka muuqato amra carayga ma muuqatay hadda hal maxaad aragtaa wad silaada aniga halka waxa arkaa qofkii dhibaato geysta horta inaan la cidii yani ay qosayso arrimahaasi qaabto ninku haween buu godobka afwan haweenka hadduu godob ka galay wadanka dawlad ayaa leedahay dawladda iscinqaabaysa wixii inqaaba iyadaa loo deeyay laakiin waxaan ka hadlayaa waxay tahay yani waxaan soo noqonayo xalkeeda aan ka hadlayaa haddii gabdhihii khatartii ay mar walba ku dhacayaan
miyaysan ka habboonayn inay khatarta iska ilaaliyaan iyo joogaan goobaha sayfka ah sida gurigooda gabadha iyadoo heli karta gurigeeda haddii xataa waalidka ay ku adkeeyaan xitaa waalidka haddii ku adkeeyaan xitaa miyaysan heli karin gabar walaasheeda gurigeeda ma heli karin muhiimiyadda gabadha u baxda nin un maahan gabadh ba xitaa shirqooli karto suumo ku dhacday ba gabar baa wada in lahaa u maleynaya yani gabar waday saas ma leeyahay saas inaan maqlaan ma leeyahay iyo maqaan mid kale inay ahayd laakiin gabadh way wadi kartaa okay hadda adiga oon dheheenin dhibaata loo geysta ragga maxaad ku talinaysaa in ragga dhibaato loo geysta ku talinayaan waxaad leedahay ragga meesha lagu arko baaqaysaa dagaal oo ragga iyo dumarka u dhexeeya ya de way iman waaye iniga dagaalkii diin waay Soomaaliya dhibaatada ragga soo moodo xun ragga dhan moodo xun halka qaldamay iniga wanaagsan mad qabatiin hadda waa kana anaga nila damqanayno oo ilaa hadda dareenkeena muujinayno oo inaan ka xunnahay aan iyo u tagina ila soo farsansan yani miyaysan ku habboonayn in khatar inta u bareerin hadda kadib ragga waraaba noqdeen ha iska kaaya ilaaliya dha u sheeg dadweynaha waraaba noqonay aniga laftiga iska kaaya ilaalinaya adiga waxaa markaa leenahay ugu dambeys maxaa leedahay ugu dambeyn waxaan leeyahay ragga dumarka loo naxo haddaysan naxariis jirinna dee ninkii anaga garanayna waxaan ka marayna dumarku ha israacaan amar waxaa ka muuqata yani xanaaq tiro badan ka muuqdo xaalka waxay u aragtay in ragga lala dagaalo oo ragga la dhibaateeyo oo dhibaato loo geysta ayay xaalka u aragtay xaalka kaas ma aha waxaa ku habboon in yani gabadho sideedba inaad khatarta meelaha iska ilaaliso horta waa point weyn Soomaaliyeed iyo dhibaatada ka daayaan dumarka way u dhaxaysaa iyo u tahay dumarka marka in dumarka ay ka dhaafaan dhibaatada ayaan ku baaqaynaa laakiin kuma baaqayno in dumarka ay la dagaalaan ka dhaafaan ka dhaaf war dhaaf waan dhalay hooyo markuu naagta wax lagu sameynayaa booweyda ma dhahdo hooyo hadii wax lagu soo hooyeyda dimadeynaysiin marka waxaa leedahay hadda dagaal ayaan diyaar u nahay wallahi dumar hadday isqabsadaan baaqaad u diraysa marka dumarku waxay leedahay u diyaar garooba dagaal ayaad leedahay iska celin karnaa halkan inay qalad gala waayo ninku naag uu iska celin karaa laakiin 10 naagood iska celin karaa ama 5 iska celin karaa 5 kaliya hal nin iska celin karo yaa ku sheegay hadda saddex dumar inta xagga ugu cadam ku tijaabiya okay waxaan joogaan meelaha safeka inaysan aaminin inaan laga faa'iideysanin jacaylka aan laga faa'iideysanin inay yani sameeyaan ka fikiraan meelaha khatarta ugu imaanayaan inay ka fikiraan meelaha iyaga u wanaagsan inay yani ku fikiraan inay meelo wanaagsan joogaan xaajiyadu way iska careysan tahay carada dumarka oo dhan way wada careysan yihiin qaarkood waxaan arkay ku baaqayaan maxaa la dhahaa hala dilo hala kufsado ragow adinkan ilaahay ka baqa oo dumarka dulmiga ka dhaafa oo dhibaatada ku haystaan ka yareeya oo maxaa u ekaada dad yani ka dambeeyaan gabdho walaalahooda gabadhan haddii aad dhibaateyso ugu beritoole gabadhaada ayaa la dhibaateynaya marka sidaa daraadeed waxaan leenahay aad u mahadsantihiin daawashada asxaabi aana daawateen aad baan ugu xunnay arrinka dhacay waxaana leenahay mar kale iyo mar kaleba waxaan leenahay ani amrano isku duuban assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu insha allah waxaa idin leenahay sidaas iyo nabad ka dumarow istajiya xaaladiina ka fikira ragow idinkana dulmiga dhaafa oo dulmiga ka dhaafa dumarka